للغادرية فضوبى للغادرية الله 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 إلهي بيجي الله 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 hargeysa ayaa lagu qabtay siyaarada Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani waxaana goob fagaara oo si weyn loo soo habeeyay guud ahaan ka soo qayb galay culimada qaadiriyada iyo sidoo kale madax dhaqameed macallimiin arday iyo mas'uuliin iyo sidoo kale saraakiil kala duwan oo ka kala tirsan ciidamada qaranka gaar ahaan dhinaca militariga waxaana halkaasi guud ahaan lagu soo bandhigay Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani iyo taariikhiisi ku dayashada mudnaa ee dhinaca diinta islaamka waxaana ay halkaasi tilmaameen guud ahaan waxyaabaha dhaxalka ee uu uga tagay ummadda islaamka waxaana culimada iyo macallimiinta haldoorka halkaasi ku kulmay guud ahaan ay yiraahdeen sidan rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin waahidah culimada mufassiriinta iyo tafaasiirta waxay ugu taala taqwadu waa saddex qaybood taqwa caama taqwa khaasa mid khawaasul khawaasa taqwada caamka waa taa qofka muslimka ay ka baqo gaalnimo uu ka baqo taqwada khaaska ah waxa weeyaan tuu ka baqo qofku amarka ilaahay uu sidiisa u qaato nahyigana uu uga tago wuxuu ka niyeysay uga tago taqwa khawaasul khawaasa ayaa jirta taas culimada mufassiriinta waxa gaadha awriyada iyo dadka ilaahay uu ka raali noqday waxa uu leeyahay ibn al-farid sheekh la yiraahdaa ilaahay doonidiisa iyo jacaylkiisa waxaan ahayn haday qalbigayga soo marto hal laxdo oo kamida xakamtu biridati inaan gaal ahay ayaan iska soo qaadaa marka waxa weeyaan cabsida ay gaadheen ee ilaahay uu ku abaal marinaya ee khasbaysa karaamo ka weyn ma jirto inteena soomado isu timi inaynu xusayno aynu ku tawassulayno aynu ku jahbariyayno siyaaradan joogna waa Cabdiqaadir Jaylaani waa janankii awliyada haddaad maqashaan taliyaha guud soo maqashaan taliyaha guud ee awliyadu waa Cabdiqaadir Jaylaani waa halkay ka soo bilaabatay darajada lagu sheegay darajo haddaad maqasho waa taliye ku xigeen gaashaanla dhexe gaashaanla sare gaashaanla hoose dablay askari Soomaa awliyada ilaahayna darajadaas kala leeday awliyada taliyeedu waa Cabdiqaadir Jaylaani radiyallahu anhu ilaahay raalli ka aado aad bay qolooyin wadaadadeena culimadan dambe maalinta halka ay ugu arkaan su'aalo fara badan bay iga weydiiyaan dibadda markaan joogo waxay ugu dhaw ninkii haday maadluha ugaas kaasaan ku dhahaa مسياري cabdiqaadir Jaylaani baad ka hadlaysaa mise wax kale meel aad ka muuqatay oo Jaylaani iyo hadalay war Jaylaani waa janankii awliyada baan ka saaqura saddex shay ayaynu ka baran karnaa ka sheekaynta culimada Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani uu ka mid ka yahay marka laga sheekaynayo ama la xusayo macnaheedu ma aha in la caabudayo ma aha say dadka qaar u fasiri doonaan macnaheeduna ma aha inaynu ka wadano qorshayaal kale ama barnaamijyo kale aynu ka wadano ma aha laakiin saddex qorshe ayaa laga faa'iideeyaa saddexda shay ee laga faa'iideeyaa waxa weeye ummadda islaamka in la jeclaysiiyo barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda iyo sida ummadda loogu adeegay diinta islaamka loogu shaqeeyo Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani waqtigiisii waxa uu ku qaatay diinta islaamka dadka inuu baro islaamka inuu adeego inuu wacyi geliyo iyo inuu ficil ahaan u tuso sida loo tadbiiqin karo ama sida loogu dhaqmayo diinta islaamka inuu ficil ahaan u tuso marka qodobka koowaad waxa weeyaan ummadda inaynu taa tusno oo lagu dhiiri geliyo oo wax cusub oo imanka ummadda lagu xayeysiyo ama la hormarmariyo iyo qorshayaal yaryar oo cusub oo meel ay ku afgo'aan aan la aqoon ama meel ay ku abtirsadaan aan la aqoonin ummaddan inaanay asal u lahayn laakiin ummaddan ay leedahay asal aan baabi'in oo aan go'ahaynin
oo jiilkani siduu u xusayo kuwa dambe ka dambeeyana ay u xusi doonaan ay kaga dayan doonaan saddex qodob oo yaryar oo tusaale ayaan anigu soo qaadan lahaa saddexdaba Sheekh Cabdulqaadir Al-Jilaani baa tusaale inoogu noqonaya haddii adigu aad doonayso inaad wax ka barato deeqaha Ilaahay bixiyo ee uu addoomihiisa ugu deeqo oo ay ugu sareyso darajatul wilaaya Sheekh Cabdulqaadir Al-Jilaani baa tusaale inoogu ah inuu weli Ilaahay ahaa li'annahu alla ka cabsiga iyo xaqiijinta addoonnimada haddii aad doonayso Sheekh Cabdulqaadir Al-Jilaani baa iyadana tusaale inoogu ah oo xaqiijiyay oo dariiqatul qaadiriya oo uu mu'assaskeedii yahay 7 qodob ayuu uga tagay salaamatu sadri sakhawatul yadi الكتاب والسنة تطبق قضبة يكون لسان تهاي أو دين تدوي حدا طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني وهن عدو ولا بقى يقول نسبة شيء جنسا أم بعد ولا بقى أي وش على سيدا كم من دقته وحقرن روحي دين تا أم بقرن كي دين تا أم بمقصد كي كتاب كقرآن كهي لينو سود شيء أيا لما تذكرن طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني دستور كذا يدردار كذا يمنهج كالشيخ عبد القادر الجيلاني وتهي هذا مركات هذول سيرة حقيقيسو شيخ عبد القادر Al-Jilaani ما تصالح نوجوه هذا دون يسو إن العمر جاء الدين الإسلام كوك قاضته وإن الدين تبرته شيخ عبد القادر Al-Jilaani ما تصالح نوجوه أن أبدأ نقول فرح سنة هاي إن نكسر قيب قالوا حفلة دي قيمها بدني اللي سمينا يي شيخنا الكبير شيخ عبد القادر الجيلي inaan ciidaasi ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay waxaan oran lahaa allahumma salli ala zaynil wujuud kulli marka la soo yimaado farxadu waxay iska leedahay qiimo gaar ah qiimaha gaarka ah waxaan ku xusi lahaa awliyada ama dadka saalixiinta ilaahay quraanka uu ku tilmaamay in ay yihiin awliya ilaahay inay yihiin awliyaa ur-rahmaan inay yihiin marka awliyaa ur-rahmaanku waa dadka muqarrabiinta ilaahay u dhow ilaahayna raaliga uu ka yahay subxaanahu wa tacaala karaamaadka la yaab kale ee qiimaha badan ee dadku ay la yaabaan ee caqliga bini aadamka ka horeeya ama khawaariqul caadaadka la yidhaahdo ay ka suganta weeye siyaabo fara badan oo kala duwan bay u sugantaa ilaahay baa quraanka kaga hadlaya meelo fara badan oo ka waramaya alaa inna awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun macnaa waxa weeyaan dadka ilaahay yaqaana ee awliyada ah ee saalixiinta ah ee ilaahay u dhow karaamaadka ka muuqdaa waxa ay ku yimaadeen in ay ilaahay u dhowaadeen addoonnimadana ay ogolaadeen ilaahay iyo rasuulkiisana ay jeclaadeen intaasay karaamada ku timi oo ku dhalatay dadku 4 shay bay ku midaysan yihiin suldaan qura way ku midaysan yihiin siyaasi qura way ku midaysan yihiin baac mushtar qura way ku midaysan yihiin sheekh qura way ku midaysan yihiin saddex way ku kala xiriir furteenoo kuma midaysna maanta suldaan qura male siyaasi qura male nin baac mushtar oo ilaahay xoolisiyo qura oo ay wax ka maqlaan oo xoolihiisa ku tasarrufo male laakiin waxay wax ka sii jireen oo ay ku midaysnaayeen sheekh qura kiina maanta loo soo dhigtay oo 100 sheekh la garab eriyaya taasi waxay ka muuqataa masaajidadeena ayay ka muuqataa taasi madaahibteena ayay ka muuqataa waad yaabaysaa masaajidada imika salaada jimco oo kale haddii aad u fiirsato waxa la wixii khudbadii oo dhan waxba kama joogaan gebigeedii waa la goostay gebigeedii dadku marka uu imaamku assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markuu idhaa xoog baa sare lagu qayli jiray salaantiiba sidii waxaan laga qaadayn unbaa imika la iska aamusayo calaykum assalaam unbaa ya markuu labada khudbado dhexdooda u fadhiisto
واستغفرت أقول قولي هذا واستغفروا إنه الغفور الرحيم مركو أنا سرى لو قاعد تشري ولا مسيها ضدك مع الاستغفار تبي كتجين دعادي بي كتجين قنوط بي كتجين الك واحد الكسا إن ضدك أنا شيخ قولي ما أنت معلن وهين أي معلمين تفربدين سيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني ووحى الصومالي وترى الشيخ عبد القادر الجيلاني ويكون مذي اثنين ووحى لورين شري ضدك سوى ضد قادرية ما أنت ضدك قادرية ده حاجة مرن أنت لنا كتشوكتي الله سوء عليا لنا حفلة نورت وحفلة هذا قيمة بدن وحفلة مسلم كردم اللهم صل على قيمة كله وقدرين كله ما دام أن سيادرنا إنه شيخ اللي سكوا ذا الراعي مشايخ دي وقت جيسة شوقي كوي كدم بيي يا اللهم إلى يومنا هذا مشيخ دي سي علم جيسة إن كيب النايستي الشيخ عبد القادر الجيلاني ها أين حسكي سوتاجنا هاي اللهم صل على سيدنا محمد قادرية مركل اللي هذا لما بدن يفرعية بدن بيله هذا هاي وحو شيخاني مريا مركا تاريخ ذا سنة كلا إيجو أو أن قادرية أيدد كدير تهاي أو أن برتن أتحدي لي هاي عيد كستو أن قادرية هاي أو أن أهل الدرغ هاي دوري الصدن الشيخ بيمرسا سنة كدرغضو دوري الصدن كسنة كمريا وسنة أن عيد لهبم يعيد كلا عن صامرين لهبيي سيد سنة كحديث كلهبيي أي سنة كدرغض لهبيي siyaarada sheekh cabdiqaadir jaylaani ayaa inta badan la qabtaa guud ahaan waxaana xilli kasta iyo mararka kala duwan ee la qabtay ay si weyn u soo bandhigeen taariikhaha iyo guud ahaan waxyaabaha ku dayashada mudan ee